بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين دمانتين بمدنيالي مروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوة هبين سبتيا وبيش أكتوبر تهاي لحية طبعا لباتن كوبي لباتن وحن كسوغن هاي قلبيتك مقالة لندن وحسبي وطني مسؤولين تيسي هالقمياشيسي يحبنيهيسي قيب كميدا يالكن كسوغن شرف waxaynu inuu xisbiga wadani caawa halkan aynu ku soo dhaweeyno mas'uuliyiin qaran oo qaranka Soomaaliland mas'uuliyiinta kamid ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cali Xaamid Jibriil iyo Qaasim Aadan Saleebaan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland وحلوانadii cusbaa dhawaan reer Soomaaliland ay doorteen nasiib wanaag waa reer UK halkan bay nala joogan maadaama ay mas'uuliyiin qaran yihiin inaguna xisbi qaran ka tirsanahay inamadeeniyo inala joogan la mid aha ay yihiin qasab ay noqotay inuu caawa kulan la qaadano oo ay noo xog waramaan oo ay nooga sheekeeyaan waayihii ay soo mareen waqtigii ay ku jireen ololaha waxay doonayeen Soomaaliland inay qabtaan iyo waxa ay noo sidaan ay dalkii nooga keeneen xoga waxa kale oo inala jooga nin siyaasi ah oo asaasiyaasha xisbiga wadani dalka Canada Ismail Sheikh Dalmar oo ninka halkaas soo fadhiya oo runtii isaguna caawi nooga wakiila jaalidii weynada reer Soomaaliland ee dalka Canada warbixin buu naga siin doonaa wuxuu nooga warrami doonaa Canada iyo reer Soomaaliland كل قبل بدن بين حسنا مركنا كيندا إنه مقالة وربحين سوق قدر صندوق هذه لا يكذبوا إن وحوي كل مكان له مقال باليوم يلا واليوم مناسبات واليوم حيلات هاي وده هذا إن عاو وحوي ومرت شرف إن سياسات كما هذا لينو إن أولية كان بين كهذا لينو إن مدينيو نقضي مسؤولين قرن أيه نسود ويننا xogna waynu ka qaadanayna waan inoo waramayaan hadii ilaahay ka dhigo dhowr qof baan kelmadda soo dhaweynta siin doona si kooban qof waliba 1 minute buu soo dhawaada ku oran doona iyo wixii maaragtay isaga ay maaragtay soo dhaweynta ereyada uu isticmaalayo dabadna toos baan mas'uuliyiinta hadii ilaahay ka dhigo aanu gali doona Qaasim waan dhamaanteen wada garanayno oo kamid ah asaasiyaasha xisbiga wadani تضبيط طبعاً كبيشي ديسمبر لما كوني كوبي طبعاً يسوي كوفيات عاد ستة أيانو هارو حسب وطني مالين تاكا وضع أساسني يمسفكين دي يمسؤولين هالكن شوجا إلى مالين تاكا قاسم وحنو جينين وحسب حولي سوسو تاجنا وحكم دي هاي المشاهدين تا برلمان كجوريد سومالان وهي حبس بو قلي وربحين بو حبس جنغسين دونا iyo liinta la sheegay in xabsiga lagu cabaa dhadankeeda waxaan doonayaa ninkan dhalinyarada aynaanshe oo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani dalkan UK kelmadii soo dhaweynta inuu yiraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada UK Cali Xaamud iyo Qaasim kuleeyda wax badan ma dhihi doono waxaan leeyahay soo dhawaada kulay halka noo warami doontiin dhulkii hooyo noo warami doontiin waxa aan ku hadlay xisbiga wadani iyo dhalinyarada reer Soomaaliland UK marka kulay wana waroo doontii ku soo dhawaad insha Allah kulay wax badan ma dheey doona halka waxaan isku nimidnay inaan soo dhaweyno walaalaheen qaransa ama madaxda qaranka oo dhawaan la doortay golaha guurtida aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa kulka hore mar labaad kulay waxaan salaamayaa gabdhaha sharafta leh xisbiga iyo dhammaan iyo xubnaha kale nagala yimid magarasa ka yimid magarasa wadanka Canada iyagana aad baan u soo dhaweynayaa waxaan ilaahay soo dhawaada kulay warbixintoodan kulay aanu shaqsiyaanahay waxaan yar jeclaa inaan dhageysto Qaasim iyo magarasa Xaamid Cali Jibriil oo aan muddo badan aan sugayay inaan magarasa kursi ay fadhiyaan fariisto aad baan sugayay aad baan soo dhaweynayaa soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala وبركاته. قدامي عبد عجنو وسنو مهتسي هاي سا أصوغا قابية لو حمنوضة كلان دوني إنان كلمة دولة داسي أينو توس أينو وربحين تدير عاوة أينو وقد جيسنا مسؤولين تا هبلها حسب وضني هالكن شوية
oo runtii oo aan u sheegay madaxda inay yihiin araxda xisbiga wadani ama lafdhabarta xisbiga wadani oo kaalin ugu jira safarro dhaadheer bay u soo galeen qaar ka midihii ama dhammaantoodba danahoodii oo dhan caawa inay madaxdan ay la kulmaan iyo guryahoodii carroodii way yimaadeen waana qayb ka mid oo halganka ay ugu jiraan qaranka Soomaaliland waxqabadkiisa Mustafa Kennedy waa gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani ee ugu horeeyay kelmad soo dhaweyn buu oranaya gudoomiyaha xisbiga ayaan markaa u gudbin doonaa dibadna madaxdan toos ugu gudbi doonaa اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى سيدنا نبينا محمد runtii waa xaflad aad u qiimo weyn runtii mudane qaasin iyo cali xaamid bacaawi nala jooga xisbigana wuxuu ku santan yahay in qof kasta oo wax gashaday ama in badan ka mid ahaa oo aan marnaba xisbiga wuxuu kaga duwan yahay annaga waxaan leenahay database ilaa maantanu aasaasnay ilaa maanta database-ka intii aasaastay gundhigtay ayaa xarunta dhex taalla qof kasta magaciisii saddexan wuxuu qabtay taariikhdiisii aqoontiisii CV-giisii intuu way taallaa xisbiyada kale intaas kaga duwanahay caawa iyo habeen kasta oo aad madal kasta timaadaanna waxaad ku arki doontaan 4 5 6 gudoomiye oo meesha wada fadhiyo oo ilaa maantii la bilaabay ilaa maanta u jooga asaasayaasha xisbiga way badan yihiin taariikh badanna caawa doonay ka warramo cali xaamud iyo qaasimba laba noo qiimo badan weeye cali xaamud waxaan sharo badan isagoo la galay ama xaafadaha noqota ama cid kale ha noqotee wuxuu ay soo gaadhay isagoo yidhi xisbiga wadani codka la siiyo marka aad baan runtii soo dhaweynaya qaasim isagu codkiisu meel buu noo yaallay waan ognahay waxaa isaguna halkaa fadhiya qaasim xasan mataan oo ka mida muxuu ahaa qoladii la odhan jiray maxaa la odhan jiray garabkii iminka wada hadalka la socdo isaguna qaybtii kale ayuu ka wadaa UK ka wadaa insha Allah shir weyn baynu qaban doonaa isagana aad iyo aad baad ii salaamaya dhammaantiinba raalna ahaada hadalka weyra dheereeyay intaas ma ahayn inaan idhaahdo maxamed carab aad baad maasantay qaasim xasan mataan maalintiisa ayaynu munaasabad weyn u qaban doonaa haddii ilaahay ka dhigo isagii taageerayaashiisa agaasimihii hore ee TV-ga qaranka Soomaaliland ahna xubin firfircoon oo dalka inala jooga ya ladiif alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dhammaantiin aad baan idin salaamayaa madaxda sharafta leh xildhibaanka maxayn cali xaamidna xildhibaankana cismaan inooga yimi maanta dalka Ireland inta kale gabdhihii halka jooga xisbiga Canada ka yimi dadkii kale ku ogaa maxay Ireland dhammaantiin sharafta alxamdulillah aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin xafladda qiimaha leh caawad ka soo qayb gasheen annagoo ku xusaynaa dhammaan xildhibaanada ka yimi waddanka oo cismaantina ka yimi Canada iyo inteena ka yimi dee kulle dad baa ka soo meeyay cabdirasaaq oo ka yimi sano Birmingham Milton Keynes magaalooyinka oo dhan wuu isbedelay koonahaasan ku ogaayay alxamdulillah aad iyo aad baan nagu mahadcelinay xafladdaad ka soo qayb gasheen farxad bay noo tahay dee saaxiibkeenu ninkii dee nala soo halgamay oo nala socday oo maanta position kala qabsaday oo ilaahay ku muneeyey xirisaana u galay siyaadda Soomaaliya qofka haddaan xiriir dama soo baxaa baa la yidhi marka alxamdulillah cala salaama dhammaantiin aad iyo aad waqti dambena weeyaan waan idin hambalyayn inaad ka soo qayb gasheen insha allahu tacaala higsigeenni waa dhow yahay insha allahu tacaala 12 bilood baa nagu hadhay ilaahayna na gaarsiiyo kursi khayr qaba ilaahay nooga dhigo insha allahu tacaala dhammaantiin waad mahadsantiin xafladda ka soo qayb gasheen dad badan baa waxay leeyihiin hablaha maxaa loo siin waayay habluhu runtii waxaan doonaa madaxda inaan dhageysano waxay doonayaan su'aalaha inay weydiiyaan maankooda waxa ka guuxaya 28 xildhibaan oo dooranay oo baarlamaanka fadhiista oo aan inuu qurin ku jirin dareen noocyo bay idin sameynaysaa saddex xildhibaanadii tiim oo su'aalaha idin yaala marka habluhu way madaxda dhageysana way dhahdeen gudoomiyaha xisbiga wadani ee UK baa kelmad siinaya dibadna madaxda ayaynu dhagaa furan doonaa hadii ilaahay ka dhigo waan salaamayaa akhyaarta sharafta leh ee madasha ka soo qayb galay marka ugu horeysa waan idinka mahad celinayaa casha sharaftan aynu u sameynay madaxda inala joogta ee aad ka soo qayb gasheen waxaan leeyahay waad mahadsantihiin
waqtigiinni baad soo hurteen jasaakallah khayr runtii waxaynu soo dhaweynaynaa gudoomiye ku-xigeenkii saddexaad cali xaamud jibriil ee baarlamaanka somalilan kii labaad ee baarlamaanka somalilan waxaynu soo dhaweynaynaa xubin firfircoon oo maanta xildhibaan qaasim saleebaan wuxuu inaga tegey isagoo qaasima wuxuu inagu soo noqday isagoo xildhibaan qaasina waxaan leeyahay soo dhawow waxaynala joogaa nin culus oo aasaasayaasha xisbiga ee dalka Canada Ismaan Sheekh Axmed Dalmar oo aan jeclaa mar uun inuu halkan yimaado oo aynu caawa isaguna martiinoo ah iyo odayada kale ee akhyaarta ah ee ka soo qayb galay shirkan barakaysan hablaha wadani mar walba waxa weeyaan hormuud bay noo yihiin qiimay noo leeyihiin waa gabdho naftooda hurayaal ah mar walba waxa weeyaan hadda mid koobaad iyo mid labaad ba way leeyihiin runtii sida la isugu duubayay gudoomiyaashii ugu horeeyay Axmedna gudoomiye hore u ahaa waxa isna gudoomiye oo jooga Kennedy gudoomiye ku-xigeenkii hore jooga oo kii imika waxa weeyaan madaxda reer wadani ee UK way isku duuban yihiin waxa jooga gudoomiyihii garabka haweenka intani waa gudidii fulinta badankeedii gabdhahan oo dhani waa gudida fulinta iyo gudoomiyaashii laamaha waxa weeyaan caawa waxa weeyaan waa soo dhaweyn hadalka waxa la idinka annana waxaanu leenahay ku soo dhawaada UK ku soo dhawaada dadkiinii oo idin jecel waxaanu leenahay soo dhawaada insha Allah taala idinka noo warami doona campaign baad gasheen hawl culus baad soo gasheen Ismaanintu inala joogay UK waxyaalahay kaga duwantay Canada wuxuu halkan ku arkay idinku doorashada wixii idinku cusbaa ee aad aragteen wadanka intii aad campaign-ka ku jirteen wad nooga warami doontaan aad baan u xiisaynaynaa inaad caawa noo warantaan waxaanu leenahay soo dhawaada mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane Cismaan dalmar baan doonayaa inuu warbixintiisa isagu inoogu horeeyo oo bal Canada iyo waayaheedii waxaanu ku kala duwanahay iyo waxaanu ugu kordhin iyo waxaanu naga faa'iiday iyo waxa aynu kaga dayan doono ina siin doono bal adigii jaaliyadii reer Somaliland ee Canada xildhibaan Ali xildhibaan Qaasim madaxda xisbiga wadani ee magaalada London iyo UK marti sharafta dhalinyarada hablaha quruxda badan dhammaantiinba aad iyo aad baan salaamaya Canada ma tiraadeen waa meel qabow laakiin intaan qabowgu iman waa meel qurux badan weeyaan haddaan noo timaadaan waad jeclaan doontaa laakiin advice-kaygu waxa weeyaan November iyo December iyo January iyo February don't even try sida kale haddaad sabarkan loo timaadaan iyo springka iyo maasha Allah aad baad injoo garan doontaa dhul qurux badan dhul ballaaran aan la yaabay oo maxay ahayd maanta soo degayay baan ka daawanayay videoga mataqaana travelkii diyaaradda markaan Dublin maraynay galbeedkan ka soo galaan maanaa ayuunbaa waxaan arkay markiiba waxa la leeyahay landingii baa bilaabmaya marka halkana maabkii waxaan ka arkaa Ireland iyo jasiiradan yar iyaduna aan markiiba aan dee koonaheedii labadood kana soo muuqanayaan taas maskaxdu waxay ka dhacday inkastoo aan dee hore u arkay maabka laakiin markaa dee practical baan u arkay war meeshan yare adduunka ba qabsatay cawan sana meeshan yare marka nimayo meesha joogtaan waa meel wanaagsan daraga hadlay ee sheegay madaxda kala dambaysa ee intaas soo maxay jeer soo kala qabatay waan fahmi karayaa oo meeshii dimuqraadiyaddu ay ka bilaabantay ee lagu yiri baarlamaanka UK ilaa 800 sanadood bay maraya inaga imsu maraya waa qoladii labaad weey marka de 800 sanadood xadaarada taala iyo dimuqraasiga yaala ina idinkuna ku dayanayseen oo isu kala bedelayseen taas anaaba hubo hase yeeshee nidaamka idin yaala waa nidaam aad iyo aad u wanaagsan una baahan in ruantii la diga day anagu xaqi waa lagu wanaagsanaa waa dal ballaaran oo iminkaan u sheegay khayrtaan sheekaysanaynayo haddaad ka timaado dhinaca Atlantic
aadisgaasa tag maxay tahay dhinaca Pacific iyo Vancouver Atlantic waxaad ka iman karaysaa Nova Scotia ama Prince Edward Island haddaad tiraahdo waxaan tegayaa Vancouver waxaad diyaaraddu soconaysaa 8 saacadood marka qofka Ingiriiska imanaya ka soo hor dheeraynaya qofkii tegay Vancouver dalka inta hal leeg ayaan ku kala fiirsanahay populationku 40 milyan ma gaadho Soomaalida numberkeedu ma badna waxyaabaha aan u xisooday marka laga tago wajiyada quruxda badan ee dirrimaadku iyo soo dhaweyntu ka muuqato waxaan la yaabay wax kamid ah habeenkii labaadan hotelkan imaado weeyaan ka cuntayo street kan baan markaa la yaabay nool ee dadku soconayaan up and down marka waxaan wareereen annagana waxa weeyaan lixda hadii la gaaro waliba special magaalada ka imay Ottawa ma ba arki karaysid waa ghost town weeyaan meel dee xabaalo oo kale oo magaranaysa maybe khurada iyo xamaqashada laga yaabo marka dul wanaagsan baa joogtaan xisbiguna waan ogahay inuu ka shidayahay halkan taariikhdiina ma haynaa raggan oo dhan waxa weeyaan magaciidana wada maqlay markii Mustafa Kennedy this is the guy marka Maxamed Arab saas laag wajiido bay dhanaanta badan maxay ayteen xiga wal saragnay 2017 markii campaign lagu jiray inteena madaxa dhulka ku dhufan oo aan dhibaxyada ayn markaas magaranaysa ragiyaan soo marba laakiin iga yara qoyday soo ma imika ma waan ogay bulbushu cirkaasi maris marka aad ba loogu wanaagsanaa sidan aad u organize garaysantiin si aad u badan tihiin saa u manihin haddana laakiin numberku hanaga yiraahdo laakiin se quality-ga ayaan ku xisaabtanaayo tiradeeda waxaan ku qarinaa xagga quality-ga marka hawlu way wanaagsanaayeen si fiican bay u socdeen aad baa loo rajaynayaa guusha ciddii hadashaaba waxay ka hadashaa waddan iyo guusheeda sida u soconayso ama waddan iyo guushiisa aan malaha ka dhigo lab ka dhigo soma ya haddaan idhaahdo habluun raallehigaale guusheeda soma ahlan wasahlan marka insha Allah tacaala waxaan rajaynaa in ilaahay guushaas hanashadeedii iyo hawlgalkeedii iyo de waxna easy kuma yimaadaan wax Allah leeyahay wax la siiyaa hadii la isu siiyaa ma jirtee in loo shaqaysto oo loo tabco oo loo dadaalo waxana xaqiiqa xisbiga dhulka ka nool yahay waa qurbaha waliba khaasatan dhulka joogtaan UK idinkuna idin laba balami maayo waxba idinku kulin maayo waayo waxaan arkaa soo jeedkiina iyo sidaad strong tihiin ayaan ka arkayaa indhihiina iyo wajidiina quruxda badan idinku kulin maayo laakiin waxaan leeyahay waxbaan idiga sii qaadanaya idinka oo aan doonayaa inaan xagga markaan tago aan ado fariin baan idin hayaa dad baan soo arkay la yaab leh oo sidaas oo marka aniga aad bay igu tahay farxad inaan idin la kulmay aan la kulmay shirkan caawa farxad bay tahay inaan la kulmay madaxdii علي يو قاسم صاحب قاسم يو علي با ان مدح دي ورير ودني هبلها اد بي ugu tahay sharaf aad baan ugu farxsanahay insha Allah taala maybe hadaan basoo noqono soo guurin ba wax wanaagsan badan oo kulli ba fariimaha waan gudbin doonaa hadii la yiraahdo aad iyo aad waa maasantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi anigoo kamina mid ah xisbiga wadani shalay idinka tagay anigoo xubin idin kamid ah idin soo noqday anoo xildhibaana iyo walaalkeen Cali oo isagoo Cali ay naga tagay isagoo maanta gudoomiyahaygi baarlamaanka ay noo soo noqday laba xisbi baanu ka soo kala baxnay laakiin haddana waad la socotiin oo coalition baanu sameynay labada xisbina guushay iyo isbedelka ayay u midoobeen waana u midoobanaa in badan insha Allah saasaan rabnaa inaanu wax ku saxno ma ahayn midowga mid aan wax ku xumaynano laakiin midaanu qarannimada Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda ku saxayno ayuu ahaa waxa inoo darnaan lahayd caalamkuna la yaabi lahaa iyada oo guurtidii baarlamaankii fulintii dhammaan ay iska keen wada raacaan ayay inoo darnaan lahayd meel fiican baynu maraynaa ololihii doorashooyinka waxaan u maleynayaa qaybaad ka ahaydeen qof walba meeshan joogahay si toos iyo si dadbanba waad ugu jirteen dhibkiisa iyo culayskiisana waad aragteen telefoonka iyo social lacagta iyo halka kan iyo hebel la hadal iyo waxaan u maleynayaa inaad xogtiisa
aad uga dharagsantihiinoo annagu waaba dhex joogno waa dhex ordanay laakiin culayska ugu badan dadku ku dhacay idinkaad haydeen aad baan idinka mahad celinaynaa run ahaan kaalintii aad ka qaadateen waliba qurba joogtu kaalimihii ay ka qaadatay waa waxyaalaha keenaya in wadanku isbedel wanaagsan aynu u dhaqaaqno arrimihii xabsigu nin baan u ahaayoo dhib ma lahayn waan soo marnay liin ima idin soo dirin oo waxaan sahaa dee liin baa lagu soo diri doonaa laakiin runtii xabsigu xabsi xaqdarru ahaa oo gacan naga xaqdaran baa inagu dhacday siday doontaba ahaato laakiin guul baynu kagala soo baxnay waana wax iska dhaco oo maaragtay qofku markuu siyaasi yahay ama siyaasad doonayo oo waxyaalaha uu sii maray ka mid tahay marka colaad naguma reebin colaad naguma reebin curfina naguma reebin maanta annagaa u ah sharci dejin annagaa u ah inaanu saxno annaga xil noo saaran yahay marka hawluhu meel fiican bay marayaan waad la socotiin kulley dalkana dee aad baad ula socotiin hadda waxaa laga yaabaa dhowaan inay doorashooyinka kale inoo bilaabmaan doorashooyinka madaxtooyadana ha loo diyaargaroobo isbedel baa muuqda waana la isbedelayaa isbedelku wuu imanaya idamka alle wax walbana waa xukum waxaan xukumnayni ma dhacaan qof walba xilli buu leeyahay xilligiisaasi markuu yimaadana wuu iska dhammaanaya waxaa laga yaabaa xildhibaanada cusub waad la socotiin oo xildhibaanadii hore waqti badan bay nala joogeen dhaliilo badan baad odhan jirnay sidaas iyo sidaas iyo sidaas ma yeelin saasay ilaaleen waqti badan bay fadhiyeen waxyaalahaas is fadhiyeen waxaanu doonaynaa inaan wixiiba saxno niman dhalinyaro ah firfircooni badani ku jirtaa meeshii yimid doonaya inay wax bedelaan marka waa laga yaabaa degdeg iyagaas in qaar badan u qaataan in kacaanka aanu ka dheeraynay marka naloo dulqaato wixii aanu dhinacaana aanu ka khaladno waa dadaalaynaa waxyaalaha kalena dee hadda saxaafad baa inala joogtee si hoose aynu isaga waraysan doonaa idamka alle waa wada joognaa aad iyo aad baad umahadsantiin aan kusoo dhoweeyo gudoomiyahayga cali xamed kusoo dhowo بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الإسلام كانت كل سلام يا دمانتين برقية دمر با انتينا ما شفر ذاي دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه بان عاصمة شرفت له وناق له ولا لماذا له هذه بان إذا كما هذا علنا يا دمانتين با انتينا سوق من قابسي انتينا كسوق بكشبعات بان تانا قوما تغير مرلبات كل كروي رو وضعنا اللي يدل كي والله وضع سعوتان siday idinkama qarsoona siday doorasho qurux badan baa inoo dhacday oo wanaagsan oo isku sidkanayd inkasta oo dee markii dambe madaxweynuhu ku yara raftay sida habka shirgudoonka loo dooranayay uu ku raftay oo uu kelmaddii soo baxday maxay ahayd beriga dambe hirgashay ila meerayso waa la isla meeraystay annaguna habeenadii ugu dambeysay ayaanu la meeraysanay baashu markay nagu yara qaraaraatay ayaanu waxaan nidhi waa ninka miicaad la yidhaahdo oo ninka walaalayihiin ayaan nidhi ha ku jiro halkaa oo ha raaco haddii kale baashu hadduu halkan soo galo habeenkan u dambeysay istiinta ahayday salaasadu soo galayso habeenkan isniintii salaasadu kala rugmanaya beri la galayo ayaa waxaa dhacday waxaan ku kala xiroonnay 40 anagoo ah iyo qolada xukuumadda oo 41 ayaan ku kala xiroonnay deetana dood baa naga dhex dhalatay labadii habeenay ku horreeyay oo qolaa waxaa lahayd xabadday qaataanba soo daaya markii da waxaan nidhi markii dambe waxay noqotay qolyo badan baanu nidhi aynu samayno dee eeg waa la isdaraasaynayaa marka waxaan nidhi mindsetka meesha ku jiraan akhrino ficilta kaninkani uu ka helaa baan nidhi oo madaxweynahani deedna markaan samayna baan nidhi inaynu qaar ku dhex darsanno habkaasay qurux badantay laakiin haddaynu kay qaataan mid soo saarno markaa guruja iyo miicaad ku dhex tiri miicaadna waxay ka dhex qaateen salaasadii salaadii duhur
ayay markay ahayd uu la hadlay telefoonadiisu ka tagay bal yaro inta leeg buu qaatay oo barakeeyo kala una raacay una salaadii dursabaahin ay hotelka ka dhex qaatay ambassador ula hadlay rag marka rag badan oo aan magacaadooda sheegayn oo la garanayo oo halkaa ku jira ayaa markaa soo cararay la booday oo ninkii la cararayo habeenkii saasaan kula seexanay habeennimadii 3 habeennimaanu toosnay waanu weysaysanay waanu wada iswada hagaajinay 2 bas baanu qaadanay ambassador baan ka baxno malaha waxaan ugu qaatay gurigii gudoomiyaha wadani iyo ambassador waxaan ugu qaatay 45 minute soomayn qaasim 40 minutes marka waxba meesha soo wada dhex galay oo wal isqafaalanayay wadaad yaro nagu jiray oo ciise ahaa waa yaro qofaco karoonu qabaaba leeyo wasaaradii caafimaadka noo soo sheegtay oo toodhikii waa la raadinayay qariya wadaadkii rabo qarinay markay la qabtaan oo karoonu qabaa la yiraahdo karantiin la geeyo waa loola qarsanay sidaasaan ku tagnay gurigii laba sheekh baanu haysano sheekh Sokeeye iyo sheekh Cadeeye oo in fact markaanu yara yaabnaba aanu oran jirnay culimo noogu tafadalha bani'aadamku ruux kala u baahayo dee ruux buu baahayahay in markii jihaadka lagu jiro ruux buu qofku u baahan yahay uma baahna uu moogtay wax kale markaas loo jeedo wallahi waxba yara dhimanay marka waxba la shaqaynaya qaar baa loo leeyahay reerkiina wasiiraan siirayna aad lacag baan ku siirayna balaayo dhantee annaguna dee mucaarad baan nahay wad garanaysaan cashuur ma aanaanu hayndee aan dadka ka gurnay jeebkayagaasaanu dee tamari meelayna dhigtaba dabadeedna markaasaa waxa dhacday inaanu intaydii aanu culimo diinta ku akhriya markaasaa dee inuu laaluushkani xaaraan yahay inay waxaan xaaraan tahay kolba dee kitaabkaas la furino ruuxdu dadka inay ku soo noqoto dadnimadu markaasaa waxaa infacti sheekhan sheekh Cadeeye loo tagayo marka infacti waa nin aad diinta u yaqaana abtay waa loo kaman baa loo tumay sheekh Cadeeye waxba loo tumay ixna sheekh markuu sheekh aad u wanaagsan deetan sheekh markuu uu wacdi wuxuu jiray daanigu nin wadan yaan hay xisba qasbay heshiisna waa la galin halka ka sabxay ma khaayimayo diinteyda nusqaan bay ku tahay marka cid aan soo wareerin ma jirto yani waxa ku sheegaysaa yani waxyaabaha ka faa'iideysan waxa kamid ah yani diintu halka nin wali mabdiisa ku adkeysanayo mabdiisa iyo halku ka soo ku adkeysanayo waa hagaag baa dhici lahaa markaas adeer wixii kawshiis baan galay in xisbiga ka soo baxay inaan ragaadhisayo in cabdisaaq gudoomiyaha u dhisay in ragaadhisayo adeer wixii inta ka soo haraay dee ma jirto horta dadnimadu qiimahaas ay leedahay waxaad kala garanaysaa marka uu xisbi 30 u soo baxay iyo laba xisbi 12 soo baxeen uu leeyahay gudoonkan qaadanayaana waxa lagu ololeynayaa ay tahay iyadee dhaqaalihii ummadda laga goray marka qolyahayaga faqashta lagu sheegi jiray ayaa dhanaa horheedhe biway waxana loo soo dagaalamay qolyahayaga darafyada ee faqashta lagu sheegayay baa dhanaa horheedhe war wax wadde soo wada faqash baynu nahay meesha waa iga kacon bay haydee soo kan ma aha maartay markay faagti waqtiga meesha inagu yar gaabane waqti badan baynu isku helinahay in sheegaysano aad iyo aad baan idin salaamayaan in faagti sanadkan maantana waxa samada dee laga qoraa waxa sanadkan maanta samaday ka qorantaan filaya oo xagga minalaahida dabayl baa socota marka dabayshii baa socoto meel bad moodaa dadku inuu wada socdo laakiin hal dardaaran oo baan caawaan idinku dhaafaya halka dardaaran waxa weeye horta guushu way imanaysaa insha Allah oo la shaki laakiin marka aynu tan ka gudubno ee aynu nimaadno xukunka waxa loo baahan yahay aniga laftigayga dib mujaahid ma iska noqdo muddo badan baan aniga laftigayga qaxayminka ka dhici waxba waxa loo baahan in fikir la keeno
iyo dhaka la keeno kale waayo habkan iyo kolba reer uu noqonayaa meel indalafran meel inama gaarsiinayo dalkeeniina uu hodmayaa xaqiiqatan waayo waa inaynu ka fikirnaa jiilka dambe soo socda ma aha inaan tayda ka fikiro marka cidii doontaa meesha qabsato laakiin waxaan u baahanahay we need to build a system inaan dhisno marka system marka la dhisay no maanta qofka yimaaday cidda macna ma sameeyo laakiin imika haddaynu shakhsi iyo reer ku daallo waa back to square zero marka waxa weeye in fact way imanaysaa laakiin waxa loo baahan yahay in fikirkeen intii halkaas ugu tibin inta kaleba aynu cimrigeenu aan ku dhamaysano maaha maalinba meel weligaan xisbi kale ma gelin noloshayda waxaan ka bilaabay kulmiyana iyaguba markii dambe xisaabta isku xidhayo laguma baahna laygu yidhi dee meel aan lagaa rabina isha lama sii raaco soo maaha dee anna halkaygaasa ku qalashay markii dambe soo baxayna dheeman baan noqday waa lay tumay oo abti baa laysiro wax kasta waxaa laygu aqrima jirto dee maaragtay markaa wax fara badan baa jire ilaahay qulubta dadkeenna ha isku soo dhoweeyo boggeena burca isku soo mariyo dadkuna wada walaalaan nahay wada ehel baynu wada nahay inteenuba maaragtay dad kala wada fog ma nihin laakiin in fact wallaahi habkay wax u socdaanay raaliday kama nihin oo xukunka iyo nidaamka iyo habka loo socdaay wixii shalay aanu lahayn haddana maanta wax ka duwan ma wanaagsana ilaahay inagana inagama yeelo kuwa xaqa imika ku aadima markii meesha yimaadaanna xaqu kaygii maaha yidhaahday meel kale ku celceliya ilaahay inagama yeelo laakiin inoo duceyn ilaahay boggeena burcas ku mariyo dalkeena ilaahay inoo hagaajiyo dad baynu nahay qurbo ku nool dhibtayna haysatay ubadkeena iyo waxayna waynu wada ogsoonnahay inuu ilaahay dadkii yuhuudda dadka lagu yidhahdayba dibadda iyagoo ku nool ayay ku tashadeen inay qaran dhistaan haddana way kaga dhabeeyeen waa dalka quraatee diin iyo mabda loo aasaasay inaguna markaa ma taqaanaa waxa Soomaaliland loo aasaasay dad isku afa isku dhaqan isku diin ayna maxaynu Soomaalida uga go'aynaa de kama wanaagsanin kama aftoonin adin waxa weeye waxay Soomaaliland waxa loo aasaasay inay noqoto cadaalad dagaalan baa loo aasaasay dalka ilaa Soomaalida kale waxaynu uga go'aynaa wax kale ma sababta loo aasaasay waa la dagaalan cadaalad darro somaha inaynu naguna tiini inagu isku sameeyna maaha oo keena liita loo gargaaro keena wanaagsan wax loo fidiyo nidaam ay wadalkiisa halka amaanta aan joogno kii u dhashay kii kale kii wada yimidba nidaam baa kala hagaya rag baa ka shaqeey community cohesion oo kii intii kala kalarka ahaa iyo intii kala diinta ahayd iyo intii kala maxay rag baa ka shaqeeyay inaguna afar wada dhalatay oo abti iyo ilmaadeer iyo xididii wax wada hadaynu ka shaqeyn kari weyno ilmaadeerayaal ها مستقبل كين من حبك جرا مركا ساسا كنا في آد بعد ما تكين هواك ولا يدين عديديا نعكس طبعا نقطة لكن بدأ حولي ما أنت لو توقعتي ورتكلم بدأ ما نقول راعي مركا إن شاء الله يدكونا لا يدكوا مارمو لفنا برباتين لا يدكوا مارمو نعكس توهياتين دل كنا نقارها أنت لفنا برتوي وحكوري وياك هل كان عدة وحكوري وياك عدة بيلد تيجا وبدن سومad garan marka idin kana aad baan idinku salaamaya si walaalnimo leh wassalaamu calaykum warahmatullahi